saynisyahankani barnaamijka nukleerka iiraan Mohsen Fakhrizadeh ayaa lagu qaarijiyay meel u dhow caasimada Tehran. waxaa sidaas sheegay wasiirka gaashaandhigga ee Iiraan. Fakhrizadeh ayaa dhaawac ka soo gaaray weerarkaasi ugu dhintay isbitaal ku yaala magaalada Absaad. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Maxamed Javad Zarif ayaa cambaareeyay dilkaasi isagoo ku tilmaamay ficil argagixiso. saraakiil kale oo Iiraan ah ayaa waxa ay dhankooda dilkaasi ku eedeeyeen inay mas'uul ka tahay Israa'iil oo ay ka dambayso. waxay ku hanjabeen saraakiishani inay u argudi doonaan saynisyahankan shalay lagu dilay meel u dhow magaalada Tehran ee caasimadda Iiraan. Israa'iil weli kama aysan jawaabin eedeynta loo soo jeediyay, balse waxay hore Israa'iil u sheegtay in Mr. Fakhrizadeh uu yahay maskaxda ka dambaysa barnaamijka qarsoodiga ah ee nukleerka Iiraan. hay-adaha sirdoonka reer galbeedka ayaa rumaysan in Fakhrizadeh uu ahaa shaqsiga ka dambeeyay barnaamijka qarsoodiga ah ee nukleerka Iiraan. Dowladda Iiraan ayaa falka lagu dilay saynisyahankeeda ku tilmaantay mid jabinaya shuruucda caalamiga ah isla markaana mudan in la cambaareeyo. la taliyaha hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan Ayatollah Khomeini ayaa ballan qaaday inay weerar sida biriqda oo kale ah ay kaga argoosan doonaan kuwii isku dayaya inay abuuraan dagaal toos ah. bayaan ay jimcihii soo saartay wasaaradda gaashaandhigga ayaa lagu sheegay argagixiso hubeysan ayaa bartilmaameedsatay gaari uu la socday Mohsen Fakhrizadeh, madaxa cilmi baaridda iyo hal abuurka ee wasaaradda. kadib isku dhac dhex maray argagixisada iyo ilaaladiisa, Mr. Fakhrizadeh ayaa waxaa haleeyay dhowr xabo oo rasaasa, isla markaana waxaa loola cararay cisbitaalka ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda. nasiib darro, dadaalkii ay u galeen dhakhaatiirta badbaadintiisa ayaan lagu guuleysan, isla markaana daqiiqado kadib uu u geeriyooday. intaa lagu sii daray. warbaahinta Iiraan ayaa sheegtay in dadka weerarada geystay ay rasaas ku fureen gaariga saynisyahankani. Dowladda Iiraan ayaa ugu baaqday xogayaha guud ee qaramada midoobay iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay cambaareeyeen dilkii loo geystay saynisyahanka dhanka nukleerka ah oo shalay la dilay. ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking. si aad u isticmaasho application-ka, fadlan kala soo deg Google Play ama App Store-ka. ku qoro IBS Mobile Banking. kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka. haddaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada IBS Bank.